وهي Soomaaliyeed oo walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan ka codsanaysa in ay garab siiyaan iyadoo sheegtay gabadheeda muddo 4 sano ka badan in ay xanuunsan tahay lagana hayo xagga xiska ama maskaxda iyadoo sheegtay in ay gabadheeda naafo tahay aysan habeenkii aysan seexayn aysan xataa dhaqaaqi kareynin hooyadan Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegtay in wax dhaqaalaha aysan haysanin dhaqaatiirta ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa ayna u sheegeen in dalka gudihiisa waxba aan looga qaban karin in dibadda loo qaado mooyee hooyadan Soomaaliyeed ayaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan waxa ay ka codsanaysaa in ay la soo gaaraan gargaar bini'aadan ayna wax u qabtaan gabadheeda Soomaaliyeed walaal ku caawi wixii aad awoodo Soomaaliyeed waxa ka codsanaya waxaan ahay maamo ka xanuunsan gabadheeda 4 sano ah cunto ma cunayso xagga maskaxda habeentii ma seexanayso ma soconayso yani qof danyar ahay ma haysto wax aan ku daaweysto aabaheeda oo muddo badan aan kala maqanaanay yani asna ma og wala xadiis waxaasto aniga waa ku dhibooday 4 sano ilaa hadda haya habeentii ma seexanayso waxaan waa marka dawladda Soomaaliya iyo balaalihii waxaasta in ay tabarrucaan gabadhan awgeed iyo xanuunsan wallahi socodka mas'aan waa kana ogaal ma laha walaal caawi oo ku caaw wixii aad awoodo waa gabar yar oo haddana aan socon karin muddo 4 sano ka badan fadhisa aan ogaal lahayn meel walba aad joogtaan walaalaha muslimiinta waxa si naxariis ah la ka codsanayaa in aad caawisaan gabadhan masaakiinta ah iyo hooyadeedba wixii faahfaahin waxa kala xiriiri kartaa lambarada shaashada ku qoran